أصحاب قالقة وحيد الله الله ونزان وداب عنه محمامي يحيى أصحابي وحا يقول عضي أرك اللي يدلي وحاواي ما دام أن عدالة إيه حق أكالي أو أنا كهالي رد جرتو شرب بوي داغ درجي لو جيستي وحا عضي maanta markay saacad baraysay halka saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal shaqbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biya la hadlayna shaqbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar busti aqoon ab u lahaa waxa dhacday in la yiraahdo brother waxa rabaa inaan kula hadlo oo kulba aan kula hadlo kala hadla arrinka sharb boy iyo waxyaabo ku saabsan waxay brother diyaar waay waxu ka qabi waxa dhacday dhalinyartii inaa u tago markaan u tago inay gaari igishtaan oo yiraahdo brother inta ku soo wada hadlayna inabot waxay aniga baabuurka ku sii jiro waxa liigu kor wacay dik la yiraahdo Axmed Rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku ibaarayna aniga waxa siri hadii aad gabatid ama hadii aad cabsi aad isgelisid waxa iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile maadaama aad dambi lahayn because Axmed Rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah rag wax dhaco rag doorida wato iyo rag biskoolada wato aniga intaasi kaba saabsani mara ku jiri waxa la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho Jam Street Al-Hayat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid ka mid ah wajiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayay aan gacan u qaaday oo isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay dooriya leela soo baxay toori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeynaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sideedii secretary waxay siri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaan noqday geesi garab waayay oo mataqaanayo weel iska saari waayay kadib waxaa dhacday in oo mataqaana baabuurka markay gistaan ayagoo hanjabaad iyo wax walba wadaan irbaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yiraahdo cadaan model iyo inta ma jeerteen abadan waxaa balna waa inaa meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo la bajartaan ahayn waxaad bajartaan oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhilif bajartaan waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka Axmed Rashiid ahaa markii Axmed Rashiid la ii geeyey inta Axmed Rashiid la ii geeyey ka hor baabuurkii tay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yiraahdeen waxaa next ah oo kugu xijireena ninka la yiraahdo Cunaan model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ina ay soo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameeyay gacaqaad wali dhirbaaxay wali feeray kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa Axmed Rashiid markii la ii geeyey wuxuu yiri wuu ka naaxay wajigayga iyo dhaawacay saaran wuxuu yiri aniga raalli kameehi waxay soo wacday baabada hooyada laakiin raalli kameehi wax lagu sameeyay waxaa weydiiyay haddii aad raalli ka ahayn waxaa kugu kalifay inaad mataqaanayo aad ii soo adeegsid dhalinyartaasi adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ila hadashid wuxuu yiri waa ka xumaay waxa u maleynay inay ii keenayeen dhalinyartaani waa dhalinyaro oo haajiri super power waa dhalinyaro oo utqaanaas intii la laayay ka soo xirtay waxaana la laayay ay darta qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gubaad iyo mataqaana qawac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka taliyaan ani ahay daba dhilif bajarteen maadaama aan gabar bajarteen wax la sameynaayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharma boy iyo waxyaabaha ku xilisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa toori ayaad igu dishay ninka
waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa waxay yidhaahdeen calaamodel iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag marihin waxaa dhacday in axmed rashiidkii uu idhaho waa ka xumaay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii la idhaawacay lii jugeeyey wejigayga dhaawaca lai saaray waxba iima taraysa raalloqo waxbana iima tarayso wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharma boy wuxuu waxaan u samaynayaa views darteeda wuxuu waxaan u samaynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal aniga ma baqaay waxaa ballan qaadayaa waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo korisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinistaa haddii aan maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan dhibaatadaani waxay ii soo martay oo lala iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqaay mana ka gabanaay xabada haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabada igu tiriyo waxaan u dhimanayaa xaqa waxaan u dhimanayaa cadaaladda marka asxaabay dhalinyarta kaleeto loo soo socdo waxaan leeyahay ayagoon hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya mataqaanaaye cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanaaye wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen inaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan taasi waxaa waaye waa baryo aan idinka baryayahay waxaa ballan qaadayaa inta waxa igu soo gaarsiiyey dhaawac inta i gaarsiiyey haddii aana ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahannama salkeeda imari ilaahu cadaabo jahannama salkeeda imari haddii aan aarsan waayo aad iyo aada u mahadsan tahay.